السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب عيال أدبان ودي سلامينا كسر دوادة channel كيني أحمد داود channel. ما أنتوا حني دلوا ذاك دونا إن شاء الله مقالة هرجيسة يصير يوجد يارجروب يسوع عيد الفطر عيد الأضحى عيداس ويرنتي بشدود يارجروب يسوع سيادية وناكسن. سلامر كان مقالة هرجيس ما دامو أي جوبتي بليه مكانه كسر جدبني ولو حينسليك دونا سيدا وقصة كبتي يارجروب قدرت كاي وجران إن عيدان سلامر كان sida ay u keeneen qalabkii ciida dharkii caruurta iyo dharkii dadka waaweyn waa la wadaagi doonaa tani waa hargeysadii shalay oo ka soo kabatay dhaawacii iyo dabkii soo gaadhay waxaa halkan ku diyaara guud ahaan qalabkii caruurta ay ku ciyaari lahayd ee ay ku iidi lahaayeen waxaa kaloo ku diyaara dhammaan labiskii dhalinyaradu ay ku iidi lahayd oo ay ugu horeeyaan kabihii isla markaana ay ku xigaan dhammaan dharka noocyadoodii kala duwanaa sida dharka dadka waaweyn dharka dadka yaryar dadka dhalinyarada dhexe iyo guud ahaanba labiskii hablaha oo nooc walba leh waxaad moodaa hargeysada imika aynu arkaynaa inaanayba ahaynba hargeysadii dabku uu soo gaadhay ee uu dabku halakeeyey waxaa taasna inoo cadaynaya sida ay u camiran yihiin suuqyadii hargeysa isla markaana looga adeeganayo adeeg kasta oo loo baahdo taasina waa wax ilaahay loogu mahadnaqo oo la yiraahdo alxamdulillaah dabcan dadkeena waa dad dun xariira leh isla markaana aad u ganacsan yaqaana ganacsigana aad ugu xeel dheer taasna waxay nooga markhaati kacaya muddo yar oo aad u kooban gudaheed in magaaladii Hargeysa dib isku camirtay isla markaana ay yeelatay suuqyo waaweyn oo dhinac walba xaafadaha magaalada u baxay isla markaana fursad iyo chance ba looga helay dhowr suuq inay abuurmeen markii hore hal suuq baa la iskugu soo ururiyay oo suuqa dhexe hoose imika laakiin waxa abuurmay suuqa calaamadaha suuqa Jigjiga suuqa New Hargeysa iyo waliba suuqan u dhow Sheekh Madar amaba bacadli hore u dhow gubtay sidaa darteed waxaynu wada arki karaynaa caruur iyo ciroolaba in loo diyaar garoobayo ciidii oo ma sha Allah lagu soo dhaweynayo farxad rayn iyo waliba adeegasho heer sare ah waxaa iyaduna runtii farxad kala ah in suuqyadii ay camirmeen ilaa xad ay camirmeen isla markaana ay bulshadu helayso adeegyadii ay u baahnayd oo dhan waxaynu ka cabsanaynay oo aynu isweydiinay in fara badan talo bulshadu ma ka soo gaarsiin doonaan adeegyadii ay u baahnaayeen balse laakiin jawaabtu waa tano adeeg ka maqan haba yaraatee ma jiro suuqyadii Hargeysa waxaynu haddaba leenahay bulshadeena ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr meel kasta aad joogtaan caafimaad qab barwaaqo iyo waliba bashbash ku ciida waxa kale halkan ku diyaara oo halkan lagu diyaarinaya imika aynu joogno suuq weyn goob aad iyo aad u qurux badan oo lagu ciidi doono maalmaha ciida isla markaana ay diyaarinayso dawladda dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa meeshii khayriyada ama halkii loo yaqaanay diyaaradda taaladu ay taalay oo loo diyaarinayo nidaam casri ah si ay dadku markaa ugu faakahaystaan ama ay ugu nastaan xilliyada markaa ay ka soo baxaan ciida iyo tamashlaynteeda iyo waliba xilliga nasashada waxa kale oo aynu ma sha Allah arki karaynaa sida ay dhalinyaradu ugu diyaarsan tahay inay ka qayb galaan oo ay waliba aad u faraxsan yihiin iyagoo adeeganaya adeeg tayo sare leh markaa waxa ku yaalo kale goobo runtii aad u qurux badan oo hoteelo leh oo ku soo kordhay iyo waliba goobo kale oo iyaguna baac mushtar casri ah ama lagu iibinayo badeecooyin kala duwan oo casri ah waxaynu leenahay Hargeysa ciilaha mudan Hargeysa qayrka ugu sarreeya mar walba Hargeysa mar walba waa hoygii fanka isla markaana waa hidihii dhaqanka iyo goobtii loogu iimanayay ilbaxnimo casri ah waxaynu leenahay Hargeysa mar labaad Hargeysa way curatay mar labaad Hargeysa way istaagtay lugaheeda ayayna ku istaagtay ciid mubaarak